السلام عليكم. maantaita waxaan idiin soo gudbinaynaa mowduuc ku saabsan sagaalka xuduud dowladeed ugu khatarsan caalamka maanta. haddii aad ku fikiraysa inaad ka gudubto ama ka tallaabto xuduudahan aan soo sheegi doonno, fadlan ka fiirso inta tallaabooyinkaas aadan qaadin. waxaa macquul ah weliba in badan in naftaada khatar gasho. xuduudka labada kuuriyo. waxaa caadi ah in xuduudka labada kuuriyo waqooyi iyo koonfur kaalinta koobaad ka gasho xuduudaha ugu khatarsan maantaita caalamka. xuduudka labada dal waa goob dagaal oo xidhan laga soo bilaabo 1953 oo ahayd markii uu istaagay dagaalkii labada kuuriyo ee ay malaayiinta qof ku dhinteen. waa xuduud leh siligyo dheerdheer oo korontaysan iyo miinooyin dhulka ku aasan iyo weliba godad iyo derbiye aad u waaweyn. waxaa sidoo kale ku fooraro tobaneeye madaafiicda goobta. hindiya iyo baakistaan waa laba waddan oo cadaawad dheer ka dhaxayso. xuduudka kala qaybiya wuxuu taxan yahay masaafo dhan ilaa 1800 kilomitir. labada waddan waxaa dhex mara dagaallo aad u qaraar arrimo la xiriira gobolka kashmiir oo muranku ka taagan yahay. markii ay xiisad soo cusboonaato ama ka soo dhex cusboonaato labada dal, caalamka oo dhan wadnaha ayuu farta saaraa, maadaama labada dal ay haystaan hubka nukleerka, macquulna tahay inay iswadaarsadaan gantaalo nukleer ah. sidaas darteed xuduudka baakistaan iyo hindiya waa mid siligaan sidoo kale ku wareegsan tahay oo aad khatar u ah. xuduudka sacuudiga iyo yemen waa laba waddan ee carbeed oo daris ah, waxaana u dhexeeya farqi aad u weyn dhanka dhaqaalaha markii laga hadlaayo. sacuudiga waa waddan shidaal oo qani ah, yemenna waa waddan faqri ah oo xaalkiisa aad u liito. sidaas darteed kumanaan yemeniyiin ayaa mar walba ka gudbo xuduudka labada dal. arrinku wuxuu ka sii daray markii waqooyiga yemen uu ku dhacay gacanta xuuthiyiinta oo iiraan gacansaarka la leh. sacuudiga iyo waddamo khaliijna ay bilaabeen dagaalka dhanna xuuthiyiinta, taasoo xuduudka sacuudiga ee yemen ka dhigtay goob dagaalo aad u khatar ah, maadaama xuuthiyiinta ama xuduudka yemen iyo sacuudiga u dhaco waqooyiga yemen, xuuthiyiintana ay ka fogayn. sidaas darteed mar walba xuduudkaas waxaa ka dhaco dhibaatooyin aad u fara badan. muddo aan sidaas u sii fogayn, dad tahriibayaal afrikaan ah ayaa ku dhintay xuduudka labada dal ee aadka khatarta u ah. xuduudka aljeeriya iyo morocco ama jazaa'ir iyo maqrib waa laba dal oo walaalo ah, aadna isugu dhow lahjad iyo dad ahaanba. laakiin waxaa jirta mushkilad adag oo la xiriirto xuduudka labada dal. 1963 labada dal waxaa dhex maray dagaal lagu magacaabo xarburimaal oo ahaa dagaal aad u xun, waxaana sabab u ahaa arrimo la xiriira xuduudka labada dal, gaar ahaan saxaraha galbeed ee la isku haysto. laga soo bilaabo 1994 ilaa hadda xuduudka labada dal waa mid xidhan. xilligan labada waddan waxay ku howlan yihiin dhisidda derbiye aad u dhaardheer. labada dhinacna mar walba waxaa la soo dhoobaa ciidamo aljeeriyaan iyo moroccan ah. ruushka iyo yukrain. 2014 dhibaato aad u xooggan ayaa ka holacday xuduudka labada dhinac, taasoo keentay in ruushku farageliyo gudaha yukrain asagoo gacan u fidinayo fallaagada bariga Donetsk ee ruushka ku dhiirigelinayo inay yukrain ka go'aan. xaalku wuxuu sii xumaaday markii ruushku qabsadeen jasiiradda Qrim oo in muddo ah raacsanayd waddanka yukrain. xilligan weli mushkiladii ma istaagin, xuduudka labada dalna waa mid aad u adag. tailan iyo cambodia waa laba waddan oo dhaco koonfur bari aasiya. taariikhdu markay ahayd 2008 ayaa waxaa soo dhex maray khilaaf aad u xooggan oo la xiriiro dhinaca xuduudka, taasoo keentay inay labada waddan qarka u fuulaan inay dagaalamaan oo labada dhinacay soo dhoobeen ciidamo aad u fara badan. mushkiladaas ilaa hadda witaaganta lama xallinin. xuduudka cambodia ee Thailand waa mid aad khatar u ah arrimo la xiriiro
khilaaf xuduudeedka u dhexeeyo labadaas dal. xuduudka Mexico iyo Maraykanka. dhibaatada xuduudkan ka taagan way ka duwan tahay dhibaatooyinka ka taagan xuduudihii kale aan ka soo sheekaynay oo dagaalka ma dhexeeya ilaa hadda Mexico iyo Maraykanka, laakiin khatartu waxay ku jirtaa ragga daroogada ka ganacsada ee xuduudka dhanka Maraykanka u tallaabo una gudbiyo daroogada. ciidanka Maraykanka ayaa halkaas ooga jira dagaal aad u adag oo ka dhan ah ragga daroogada ka ganacsado, waxaana ku dhintay askar Maraykana iyo kumanaan ragga daroogada ka ganacsada ah. waxaa intaasii dheer kumanaanka qof ee muhaajiriinta ee u gudbaya dhanka Mexico, taasoo xuduudkaas ka dhigtay mid aad u dhaqdhaqaaq badan marka la fiiriyo ciidamada joogo. dheerarka xuduudka labada dhinac wuxuu gaarayaa wax ka badan 3,000 oo kiiloomitir. Ethiopia iyo Eritrea 1998 waxaa labada dal dhex maray dagaal xuduudeed aad u qaraar oo ay ku hoobteen kumanaan askarta labada dhinaca. dagaalku wuxuu socday ilaa 2000. dagaalkaas waxaa lagu tiriyaa dagaalada ugu khasaaraha badan geeska Afrika marka la eego khasaaraha dhanka maaliyadeed iyo nafeedba. ilaa hadda xuduudka Eritrea iyo Ethiopia waa meel dagaalo aad u adag, waana xuduud xiran oo waxaa mamnuuca in la isaga gudbo. sidaas darteed xuduudka Ethiopia iyo Eritrea wuxuu shabahaa ama u dhow yahay xuduudka koonfurta Korea iyo waqooyiga Korea marka la eego khatarta ka imaanayso ka gudbitaankiisa. xuduudka Masar iyo Falastiin, laakiin ay Yuhuuddu xooga ku haysato. Masar xuduud ayay la leedahay Falastiin, laakiin u kala qaybsan qayb yar oo ku teedsan marinka Gaza iyo qaybta kale ee Yuhuuddu xooga ku haysata ama koonfurta Falastiin. xuduudka Falastiin iyo Masar waa xuduud aad khatar ah, waxaana ku gadaaman siligaan. sanadadii la soo dhaafay waxaa ku dhintay muhaajiriin Eritreyaan iyo qaar koonfurta Suudaan ka imaaday oo u socda dhinaca gudaha waxa lagu magacaabay Israa'iil. waa xuduud aad khatar ah, waxaana mamnuuca in laga gudbo.